kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wararka ee dalbile qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo habeennimadii xalay ahayd hoygiisa ku booqday madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani oo ku sugan gaalkacya kulan la qaatay habeennimadii xalay ahayd qaar ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug ayaa ka hadlay damiciisa ku aadan doorashada madaxtinimada puntland ee waxay tahay go-aanka siciid dani uu qaatay faahfaahinta ayaad kaga bogan doontaa ciidamada daacadda oo ah garabka cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan oo iyana habeennimadii xalay ahayd duleedka magaalada baydhabo howlgallo ka fuliyey iska horimaad kooban oo halkaasi ku dhex maray ciidanka dowladda federaalk soomaaliya qodobada kale aad daawan doonta iyana waxaa ka mid noqon doona muwaadin soomaali ah oo gudaha dalka maraykanka lagu xiray kadib markii lagu eedeeyey in uu shakhsi kale toogasho u geystay sidoo kale qodobada dibadda aad daawan doonta iyana waxaa ka mid noqon doona iiraan oo gebi ahaanba mamnuucday maritaanka maraykanka ee gacanka farish marinbiyoodka hormus haddaba qodobadaas ayaa daawan doonta inta tabintan aynu ku guda jirno soo dhowo muuqaalka laysar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo diyaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay hagaaga aynu ku horumarno deegaanada dowlad goboleedka puntland warar degdeg ah oo hadda naga soo gaaraya waxay ku waramayaan in xiisad ciidan oo aad u xoogan ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka karkaar gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo ragaraaxo ciidamo ku sugnaa gudaha degmada carmo ee gobolka bari oo ka guuray ayaa waxay gaareen deegaanka lagu magacaabo ragaraaxo ee gobolka karkaar halkaas oo isku hor fadhiyaan waqti xaadirkan ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee puntland ciidanka dowladda puntland iyo sidoo kale ciidamada ku biiray safka federaalka ayaa waqti xaadirkan waxa ay markaasi ku sugan yihiin iskuna hor fadhiyaan deegaanka ragaraaxo halka dadaalla isimada dhaqankii odayaasha ay wadaan ay ku doonayaan in hoos loogu dhigo xiisadda islamarkaana laga hortago suurtagalnimada dagaal halkaasi ka dhaca puntland ayaa horey go-aan uga gaartay ciidanka safka federaalka ku biiray ee ku sugan gudaha deegaanadeeda inaysan suuragal ahayn in halkaasi ay sii joogaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo wakhtigiisu dhammaaday ayaa habeennimadii xalay ahayd hoygiisa ku booqday madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka xamse iyo sidoo kale farmaajo ayaa ka wada hadlay xaaladda cagtiran ee siyaasadeed ee dalka ay ugu muhiimsan tahay arrinta doorashooyinka xilli farmaajo horey uu u muujiyey dabacsanaan ku aadan qorshayaasha doorasho ee filla soomaaliya ay la imaaday laakiin qodobada qaar uu gebi ahaanba markaasi gaashaanka u daruuray xamse ayaa uga mahad celiyey farmaajo taageeradiisa ku aadan in doorashadu ay noqoto mid qof iyo coda islamarkaana dadweynaha fursad loo siiyey in hoggaankooda ay doortaan waxaana uu xamse sheegay in waqti xaadirkan la joogo xilligii dalka uu ka gudbi lahaa doorasho dadban islamarkaana loo gudbi lahaa doorasho dadweyne oo shacabka iyagu markaasi ay xaq u leeyihiin inay doortaan cidda hoggaaminaysa iyo sidoo kale markaasi nooca doorasho ee dalka ka dhacaysana inay noqoto doorasho dadweyne oo qof iyo coda dhinaca kale duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada daacadda u ah garabka cabdicasiis xasan maxamed laftigaran ayaa habeennimadii xalay ahayd waxa ay ka fuliyeen howlgal iyo sidoo kale iska horimaad kooban oo dhex maray ciidamada daacadda u ah garabka aadan madoobe iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee fariisimaha ku leh duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidanka lafta gareen oo markaasi ku jiray howlgal iyo sidoo kale abaabul aad u xoogan ayaa sikadiisa isaga hor yimaadeen ciidanka daacad u ah garabka aadan madoobe iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo howlgallo roondaha ka waday duleedka baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban sidoo xoguhu ay tilmaamayaan islamarkaana waxaa soo gaaray labada dhinacba khasaare kala duwan ciidanka lafta gareen waxay sheegteen inay ka hortageen duulaan qorshaysan oo gaadma ah oo ciidanka aadan madoobe iyo kuwa dowladda federaalka ay ku doonayeen inay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka lafta gareen laakiin ay ka hortageen oo ay markaasi si adag ugu jawaabeen ciidanka lafta gareen ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ka waday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah ciidanka aadan madoobe iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo ay sheegeen inay ku soo duuleen dhinaca kale gudaha dalka maraykanka ayaa lagu xiray shakhsi muwaadin soomaaliyeed oo la sheegay in loo haysto dilka qof kale oo markaasi ka dhacay gobolka lagu magacaabo florida oo markaasi la sheegay in qofkan soomaaliga ah uu dilay muwaadin kale islamarkaana ciidamada booliiska ay gacanta ku soo dhigeen
muwaadinka Soomaaliga ah ayaa la sheegay in xilliga toogashada uu geysanayay uu markaasi ahaa qof aan miyir ahaan joogin, waxaana ay sheegeen in muwaadinka Soomaaliyeed oo da'diisu ay tahay 42 jir hadda la geeyey xarunta dembi baarista si markaasi loo xaqiijiyo sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in falkan uu ku kaco. akhbaraadka dibadda qodobadan idin waxaa ka mid ah Iiraan ayaa ku dhawaaqday go'aan culus oo ka dhan ah ciidamada Maraykanka ee ku sugan bariga dhexe. Iiraan waxay sheegtay in gebi ahaanba ay mamnuucday ciidamada Maraykanka inay adeegsadaan barbiyoodka gacanka Faris, waxaana ay sheegeen in ciidanka Maraykanka halkaasi mamnuuc ay ka tahay islamarkaana aysan gebi ahaanba ka soo agdhowaan karin haddii ay isku dayaan ay tallaabo adag markaasi ka qaadi doonaan. Iiraan horey waxa ay gebi ahaan u xiratay gacanka Hormuz, waxaana ay sheegtay in aagagaasi ay yihiin kuwo markaasi ay mamnuuc ka tahay inay adeegsadaan Maraykanka iyo sidoo kale xulufadiisa ka caawinaysa dagaalka gudaha Iiraan oo ka wado Maraykanka. Iiraan ayaa u muuqata inay sii xoojinayso cadaadiskeeda ku aadan Maraykanka iyo sidoo kale xulufadiisa dagaalka kula jirta, walow Maraykanka uu wajahayo kelinimo ku aadan dagaalkii uu Iiraan la galay xilli uu ka filayay saaxiibadiisa NATO ama Yurub inay markaasi ku garab istaagaan dagaalka ka soconaya gudaha dalka Iiraan iyo duqeymaha Maraykanka oo halkaasi ka fulinay, iyadoo gebi ahaanba dhinaca kalena Israa'iil ay ka maqan tahay duqeymihii sidoo kale dagaaladii ugu dambeeyey iyo weeraradii Maraykanka uu ka fuliyey gudaha Iiraan. Iiraan waxay sheegtay markab kasta oo Maraykan ah oo halkaasi ka soo agdhowaada xulufadiis in ay badda gelin doonto islamarkaana ay burburin doonto, waxaana ay sheegtay in digniintaasi ay tahay mid kama dambaysa oo aysan jiri doonin digniin dambe oo la siiyo. qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa warkeenna. wixii soo kordha tabinadeena xiga ayaad ku daawan doontaa.